bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxaad kala socotaa waxyaabaha ka socda soud kuriya waxay ku yaallo shirkado soo saara qalabka elektroniga iyo teknolojiyada oo caalamka aad looga yaqaano loogana isticmaalo sida l g huwai iyo samson waxay kale oo ay soo saaraan waxyaabo kale waxaa jira waxyaabo badan oo ay isku waafaqsan yihiin soud kuriya iyo qaramada midoobay laakiin marka laga hadlayo dhanka waxbarashada iskuullada soud kuriya waa ay ku khilaafsan tahay qaramada midoobay haddaba dhowr arrimood oo arrimahaasi ka mid a ayaa muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa waxbarashada maalmaha sabtida iskuullada yurub lama akhristo waa fasax soud kuriya sabtida mana dhigtaan oo casharo ma qaataan fasaxna ma ahan iskuul kasta oo caalamka ku yaala ardayda dhigataa waxay leeyihiin yuniform gooni u ah oo qurux badan laakiin ardayda soud kuriya arrimahaasi way khilaafsan yihiin oo ardayda yuniformkooda waxaa ka mid ah in ay soo xirtaan taakada timaha oo dahab ka samaysan iyo dhago dahab ah waa gabdhaha islamarkaana ay faruuraha soo marsadaan libsi ama roseto iskuul walba oo caalamka ku yaala ardayda wax ka barataa waxay leeyihiin musqulo ay isticmaalaan lagumana qasbo in ay hore wax u sii qaataan laakiin soud kuriya iskuulladeeda ardada intayna musqulaha gelin waxaa lagu qasbaa in ay hore u qaataan warqadaha lagu istijoodo iskuul walba oo caalamka ku yaala ardada waxaa lagu qasbaa in ay kobo buud ah soo xirtaan laakiin ardada iskuullada soud kuriya marka ay buud soo gashadaan iyo iskaashaba fasalka lama geli karaan waxaa lagu qasbaa in ay buudka iyo iskaashadaba iska bixiyaan ayagoo laga diidayo urka ka soo baxaya iskaashada waxayna ku galaan iskuullada dacas iskuul walba oo caalamka ku yaala ardada waxay ka qayb qaataan nadaafinta iskuulladooda iyo fasalladooda laakiin iskuullada soud kuriya waa la doonaysiiyaa nadiifinta fasalada ardada inay ka qayb qaataan iskuul walba oo caalamka ku yaalo waa la kala saaraa maalmaha cayaaraha iyo maalmaha casharada ay qaadanayaan ardayda laakiin iskuullada soud kuriya galab walba waxay qaataan dersi cayaar ah iskuul walba oo caalamka ku yaalo waxaa la qabtaa iskuullada soud kuriya ku yaallo waxay isku dayaan in ay qabtaan xaflado ka duwan xafladaha iskuullada kale ayagoo ku qabta xafladaha webiyada iyo badaha dushooda dhanka jaamacadaha macallimiinta soud kuriya jaamacadaha ka dhiga waa mamnuuc in ardayga uu su'aal weydiiyo macallinka inta uu sharaxaadda dersiga ku jiro marka uu ka baxo dersiga ayaa wixii su'aala la weydiin karaa ardayga haddii uu hurdo inta uu cashirka socdo hurdada lagama toosiyo waxaana loo fahmaa in uu cashirkaasi u baahnayn ardayda soud kuriya waa ay ka ciqaab kulal yihiin ardayda kale ee caalamka wax ka bartaa wakhti kasta oo la ciqaabayo macallimiinta wax u dhigaan ma ciqaabaan ee waxaa loo doortaa dad gooni u ah oo ardada ciqaaba maadaama aan idiin soo gudbinay fiideo cajiib ah oo warbixinno faa'iido idiin leh waxaan kaa doonaynaa in aad sabskrayb saarto islamarkaana aad leegarayso adigoo marnaba ka reebaynin sheer maxaa yeelay waxaa la doonayaa asxaab kale oo badan in ay ka faa'iidaystaan